شخصي كان هو هاي عبد الله قش الله يرحمه. I love him dearly. I met him in London, 1995-96, something like that. ويعزوه ويحيي عدو فنك مال ونكسم بعد كبلاوي تبها الله أول never ever. Wow. And he's the Somali icon of music. They are the founders of Somali music. What we know, Abdullah Hudaydi and Qasim Hiluri. They are the fathers of this whole music thing. marka adiga hadalkaas markuu ku yiri shakhsigii horena uu ku yiri hadal ka duwan waxaan filayaa in ay niyadaada aad ma aragta hadalkaasi uu kugu dhisay. I get emotional every time I remember that day. waan dareemi karaa xusuus horena waan ku gelinay. wuxuu yiri كلام صوفاتي وهو قاعد يهست الرونو. رونو هست هذا أدو دب عسبوريسي رونو ربي الرحمن سومالي ده رونو ما شاء الله عليه. كلام صوفاتي كتيسو أنت بس كقاتي أن هستي الراب كأهو اللي نحتال وقولك قدرني. dadku duuro dhulka diida dayaxaado waddanka guud dimuqraadi la isku doorta dadkaygi dib u qaado dowlad laatan damba moodo waddanti gaartay dadkeeni loo dayaco oo lin dambiilo dulmiilo waddan qaliba dadku waalo ama mid ka daro diin lahayna u duceeyo dujinaye dadka yowm isku dogme isdabeeri waddanta guud dad ilaahay idantaada lagu dallici masadumi wadumi baa ku jiriye in la isdiilo oo la isku duula anigu diidaye in la isdiilo oo la isku duula anigu diidaye in la isdiilo oo la isku duula anigu diidaye in la isdiilo oo la isku duula anigu diidaye in la isdiilo oo la isku duula anigu diidaye. waxaan ugu daray wuxuu Abdullah Qash Allah yarxamu yiri abdul lahm baan doonaya inaad ii samayso. Wow. I was like what? You see? And that is يعني energy. واحد بكرامة تقول نقطة ولا يا سما. I was like, but now but anyway, his ودنيا حبينا قاضي ودكين بفرصنا as you know still fucked up but we better now. And his أيام حبينا كهذا ضبط الناس كجرا أو ضبط يقولوا كما شكل ضبط كجرا وحصل قاعتي جب كامل ربي الرحمن وسومان ذوفر وأنت كان ديني ذلك الدولار ذو كتير ضيع حاله وضم تقول دم مقرات اللي اسكت ضغطة ذكي تقول بعض الدولار لان تندم بموضوع وضم تجارتي ذكاني لا ضيعه ولين تبير بالميلو دم غني بعد تكواره أو متكثر الدين هنا ودعية تجينا ذكيو مسكت ضغط من استباري وضم تقول تر إلهي إذا تعرض مطلق من سدومي ودوبي بات كجيرية إلا يسديله الله يسكتوا لاني قتيدية 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 بهذا الصورة. Of course والغالين كري ممكن أنا أفتح حيوان قريب كري تاس كلام but وحبي قف وحبي يجري the best possible way. Take it. And that's right. CD أيام ما كان صباح البلبة CD ونوضي ألبوم فيه كذا وهستاس كوجتي هستاس وحنون كبيري عبد الله غشة. نسيب درب ألبوم فيه صباح CD صباح عبد الله غشة وادت الله يرحمه سوى عندك يسد. مركا every day ما كان هستا نقولها remember. I'm sure he would have been so proud. ما شاء الله ما شاء الله. الفنان هسه waxay ka kooban yihiin maxaa la oran jiray mirihii laxankii iyo muusigii iyo waxyaabo fara badan oo aan soo koobi karin ba marka maxaa isleedahay ugu muhiimsan yahay intaas
هرتا هو سؤال مهم in a way خصيصة the reason I'm from the and I hope in فنانين الصومالية يلاقيستياش الصومالية اللي فانك الجهرة طايرة أي فهمان فانكو message أيوة no matter what message كاتي وحنا هنكرا political, religious, sexual, sociological, whatever it is. It can be a message or it can be just simple love, romantic. message kaas farintaas uu heestaada mafanka uu xambaarsan yahay dadka inuu gaaro ayaa ujeedada sabab haddii aad mikrofon qaadato oo aad xaafadda ku tagto oo aad mikrofonkaas ku dhahdo waxa dhiiray way gaaraya laakiin adigoo dadka bila mikrofon haddaad soo istaagto oo aad isla farintii dhahdo saddex qofood oo guud maqlaysa so لما نقدر محا لود فرينتي استقفل جالسين he didn't have a microphone that's why he musical وواحد فرينتا فنانك شعب إحدى هذه اللحن كان وحنيه موسيقى ما في عناقة موسيقى وحكي مادة لحن كمية مادة رياضة so اللحن is the most important and most difficult so ما نقول الرياضة هي number 1 number 2 number 3 That's why they said Nairobi is كذا حتى جلبي الجامعة ما يقاطع تقول خيالي حالتا جيب حصل what the hell ما فهمت لا تقبل من ده it makes sense it's what makes the message go ما فهمت غير كلام عني صباح يقاطع history بعد ده history معناه ما fast with big drums وهيس Skumi Zaman. It can be slow and beautiful. That makes people cry. Or it can be a dance song. That's a dance song and it's about dance. Like music will follow my life. And it can never be a dance song. So Lahan is number 1. Arayo is number 2. Music وحكي ماذا لحن فيها لحن في عنها هي سوى هاي music بس لحن music وحكي how you are singing لحن and then your message will go through. إذا African أو ننكره من nothing بدرجة حمر because دارين we don't know what the hell he's saying but the music is talking to us and music comes from the lahan marka fanaaniinteenu eriyadan takray dhaqankiisa ilay dadkani iyagoo aan fahmin processka heesta loo marayo ayay eriyadii that's number 1 number 3 choices of everything oh beautiful what he is saying so who understands Nobody. Fela Kuti was a Nigerian. He's the father of African music, half kids so sorry, especially Afrobeat. America, you see how big it is. Ahmed Naji, Muhammad Salam, they are our legends, and they have said a lot of beautiful things to us, but only to us. Because قفك أنا Somali يقول إنها تيجي لابد يسوي هسيل عمر يجعلكها خفض على they would have cried but they low show you أياك تقول and it's not about the language it's the music of the song I don't care what you're saying but I was a kid in Hollywood. I didn't know what the hell he'd say. But when I grew up, I knew what Michael Jackson, rest in peace, would say. Don't stop telling me to run it. But the way he was saying, that's right. And when you look at the Atlantic, of course, don't stop till you get enough. اللحن is number 1 وانت وحنا هي قريب من كتيجة واحدة related يجي أنا جي عليه يقول جين جين محراعين أنا شو أنا جنبر كل شيء يعني يدروا حس مرة كم أنا شرم بوي
whoever غير yararka ah oo soo baxay ayaga qiimo badan yani xataa Mareykan ku ciyaari kara dhageysan karaya صح Somali ku ciyaaray wallahi macna ma lahan it's not a bad game come on it's not a bad game it's no longer in our culture to speak reality game badina wala laakiin isgaar camaanta sheekada la soo tagay alfanan su'aashani waxay tahay bariyahan waxaa jira dad badan oo fanka Soomaaliyeed caan ku ahaa ama laga wada yaqaanay ama saacadaha waqtiyada ugu dambeeyay aad loo dhageysan jiray heesahooda oo haddana shaacinaya inay fankii haddaba ka hayaameen maxaa sababi kara marka inay fanka hadda ayaan daro bulsho aan fal lahayna waa bulsho aan jirin adduunkana kamid ah bulsho aan fal lahayn Cabdilmajiid Cabdalla waa fanaan Sacuudiyaan oo codkiisa jecla risra magaalada Makka ayuu fi fan waa fan everybody needs art marka qofka Soomaaliga ah ee ku dhahaya funking waan ka baxay wuxuu ka tarjumayaa wadaadku sheega mukhalifada wada oo raba inuu yiraahdo fanku waa xaraam diinteena hawl meel ah kama horan fanku xaraam ilaahay ma we talk Abu Hebel bayri well darake Abu Hebel many Abu Hebel but Allah never said that never waxaa marka xataa wajida waa ideology qofka lagu shuray لكن even هذا فنك جوجينيسو واتناس it's like ما تقدر الرواية نفسه who cares ما قال ما تشن ما كان جوجينيسي we don't care the first ممكن فنك سوق لي تمام كني أنا قال ما تشن ممكن تبحينا ما هن النوشة ما كهرب النوشة ما كده بني النوشة ما هن بس فرحة ما أنا قال بهسي ولي اسمه دي فن بجوجي هو politician هو professor he sings every now and then why not ما فهمت ما فهمت هو كعاجز كتا وكجوي كتا وسكتباف كتا and so on لكن the main reason أصلا كان يمهر المريضي دكتور نوع عصري بتماده و مقالة درتيس دينكو حق copyright فنانكو وحق إنه هي wixii iibsaday inuu helo sida dukaamadu waxa uu iibsaday uu helo kama jirto heesta hit ka noqonaysa Soomaaliya wiilkina bajaaj la'aan ayuu yahay ana gabdho bajaaj ka bixiyay xamar hit ka wiilal hit ka noqday bajaaj ka bixiyay waxa waxaas in magaalada dhan every car iyo every station heestaada ciyaarayo adigoo iyo gool asniga that's not fair that's not right دولة الصوماليات فنانين الصوماليات everybody وإن أي سمايان copyright laws and rules and regulations so people can get their rights مثلا radio stations كان مقدشة كوريا هي سهل بدك ولا داريا they don't pay one penny to artist television مثلا صور دوريا هي ساعة تتياشة they don't pay one penny ما فنانين الصوماليات سوي مادان حقوق الضوضاء It doesn't matter. قاعد أقول هذا دمبي or not. It doesn't matter. جرك إذا كان عستاد كل شيء سي $10 you owe her $200 وحرام ما you the one or good the state so never mind about religion back right the same thing قفت عمامتك حد يقدر أجرك إذا أنت وضعت له شيء same shit marka fanaaniinta waa xuquuqdooda helaan dawladdu waa inay ka fikirto iyo wasaaradda waqaafinta iyo tiyaatarka iyo everybody shaqo waxa weeyaan maalinka aad soo galaysay fanka maadan shaacinin oo maadan ogeysin hadda markaa baxaysan inaad ogeyso muhiim ma aha show off على وقعنا show off it's show off that's what it is furaya xaaskayga what he needs is somebody to tell him no she's beautiful stay with her that's fucked up I don't care if you're stopping or continuing. Funku soconaya kuma dhugtinayo
waxaan filayaa horta waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka inkastoo aan ka xumaa inaan soo gabagabayno laakiin waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aal lama filaan oo dib u dhiganay khaasatan aan dib u dhigtay waxaad tahay fanaan waxaad tahay suxufi intaas waxaa kuu dheer inaad tahay qoraac dad badanna laga yaabo inaysan ogeyn dhowr buug baad qortay haddaan xuso buuggii in the name of our fathers buuggaas Amazon iyo meelo badan buu ku jiraa hadday dadku u baahdaan ma aragtay buuggaas wax yar ma nooga sheegi kartaa I was in Egypt قاهرة joogay waa markaan fanka geliyay around the same time waxaan arkay حتى Somalia oo beautiful ah kasoo tagay peaceful ah nabad ah I was in Egypt and India and there and Pakistan kadib diyaaraddeena waxay imid jirtay arbaca artay Somalia Airlines waxaan u tegi jirnay shukaansi soo degdeg iyo wadamo waxay iman jirnay su'aalo ganacsato oo sula barur ah oo hotel iyo loo gaarayo we are students we make money out of them hotel fangeynaa awda kabaha oo shukaansanaa waxaa dhacday maalinta dambe diyaaradda waxaa kasoo degay laga madaxooda xufxufan yahay odayaal macawis wata people dambiyo iyo bacod boosooy qurxoon iyo dirac qurxoon iyo goono iyo surwaal jeans iyo it was beautiful this time it was like and everybody was like and we were like Tariqa what the hell we don't know in dalkii ololay less burbury, less birlaqaysa, less kufsada. We have no idea. Really, TV is a fast. The rest is history. But anyway, we just come in and work on it. You shaky. I was like, what the hell is going on? How you sharing? And then I was like, well, this is heartbreaking. Write a book about the same thing. I'm not a writer. I just like to do something. Boogie, I am the Labe, Sheikun Kisi, I am Kapati, the main points, and then the rest I fictionalized and I wrote something called a historical novel. Boogas in the name of our fathers, Wahan used Garay, every Naqado of Dalkan Katnabe or date code, everything Sahih, and then I fictionalized and characters, I am everything happening over there. قبيلتي والكلابيبي the main character علي علي has got a lot of people Somalian which is part of the dilemma again. That's what we're saying. What you gonna do? It's not that. Look at book how they brainwashed the invention of Morian, if you like. Like in the he realized this is not good. So, Bugas will come in and maybe can be African literature studies in the UK or even in the States. But I'm proud of that book. ما شاء الله ما أدى ما ركتي بوجاس أنت تذكر عن آخر ولي أما فرصة وهلين وحنفلنا إن أي أمازون يو ما ركت مالها كله جوابها كله أونلاين كلو يبي بوجاس إن أي كهري كران لينك كانوا نسوق قديم دونا سؤال شو ضبيسا يا ربنا كويدي وحاول قالنك قرما يدبوا قاعدة دون تأستاذ حنيه هو هرجع intentional أيه مكان لها start writing books book بعد إلى take a break ما هي بحس كده عاي it was intentional well I figured in I can make music I can produce and all that والحمد لله what about writing? Oh yeah, I can do that too. But وحن برتي as you said journalism وحكروا برتي filmmaking European Film College أنا بحي وحن برتي script writing and editing and video directing and the subject and a master's degree I am Kota International Journalism from City University of London. What else I see people try? The reason France, they don't read. They don't like reading. They like to, we're lazy. They don't have time in a book to go from
you know, silence of Bahantay, quiet place of Bahantay. Yeah, you get 5 kids. Where the hell is that? So reading, it's good. Generation get them back, and I'll get back to it. Like, what happens if try journalism and try film? Journalism is dangerous in Dakar. Film is even more dangerous. But I'm not going to give up. Okay, to answer your question, I will write as long as I'm alive, and I'm writing books. I'm still writing, but not yet coming out. And Bulgas will a sequence, and the first book was William, a teenager, or قبيل لغشوي قرافان لغشوي بيان لقلي نفتي سلبح صلي. The sequel was the way he came to the West. It could be Minnesota, it could be Copenhagen, it doesn't matter. And then another surprise will be he's going back, and he will be held back or Prime Minister or what the hell. Don't give away the plot. ما شاء الله. waxaa filayaa inuu noqon doono buug aad u xiiso badan kulay inta buuggii hore oo akhrisay buuggan wuxuu noqonayaa mid aan wada sugi doono kaasna mid kale ku soo xigi doono. Somebody makes a film about it. It's visual, so visual the way I wrote. It's not lyrical. It's visual. It's like scenes and scenes and scenes, and I'm jumping. waxaan challenge gareynaynaa saaxiibkeen Axmed Faarax. He's my friend. Filmmaker ka weyn Axmed Faarax iyo dhalinyarada kaleete ee filmaanta iyaguna sameeya ayaan challenge gareynaynaa in ay filmkaas buugaas in ay filmka sameeyaan. I can write with the script for them. No, we can make it happen. Waa Axmed Faarax kulli una daawanaya marka waxa waaye projectigaas filimka ayaan le oo hadda ku guda jiro kadib marka uu dhameeyo ayaa rabaa inuu in the name of our fathers moviegaas inuu sameeyo insha Allah. su-aashan ugu dambaysa waxay tahay waxaa ka dhawaajisay inaad film industry aad ku jirtay script aad sameyso inta qurbaha aad joogtay ama ha noqdo filmaan Soomaaliya ama ha noqdaan filmaan ajaanib ah waxaad sameysay oo hadda ma jiraan. Maya, Denmark, Europe, or Denmark, UK. One time I film a script or a Jiran, like there's nothing called free lunch. The script is beautiful, but you see, they don't care about you building your country, talking to your people. They want something about their country. And then I said, والله مو فاهم يا عم فيلم Well, how I can make films about nothing. These countries and again I have to register. That's why they're talking about gay rights and women rights and snake rights and elephant rights and who cares? Our brothers and sisters are dying. They're being raped. They're being poisoned. They're being bombed. I have no time writing gay films and shit. No. So I will keep making music as long as I am alive. I will write books as long as I'm alive. And when I get the chance and I feel really safe, yeah, you will hear from me. Motion pictures, investigative journalism. What? halfanaana aad baad mahadsan tahay barnaamijkeena maxaa la oran jiray waxaan maraynaa gabagabadii iyo gunaanadkiisii ina dalmar dadka aan aqoonin waa nina hadalkiisa la gabanin runtii oo ma taqaanaa he's very unfiltered waa unapologetic. Only God can judge me. Absolutely. Ustaad aad ayaa mahadsan tahay Fuad hay inoo soo gabagabay. Ustaad baa mahadsan tahay barnaamijkan inaan maxaa la oran jiray aan ku martigelin inaad naga aqbasho oo aniga shar codsiga naga aqbasho barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo ka badan insha Allah taala aan kugu soo dhaweyn doonaa waan kugu martiqaadi doonaa intaan dib u kulmi doonaa anaga Shaywaal Media sidaas iyo nabadgelyo.